بقرآني فيشرق صبح برحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكوثر أيضا هو سورة مكية waxay soo degtay intuu nabigu sallallahu alayhi wasallam uu Makka joogay bay soo degtay macna tayib ayaduna waxay ka hadlaysaa nabiga sallallahu rabbi wa sallam alayhi ilaahi subhanahu wa ta'ala shay uu siiyay oo aad u weyn qaali ah iyo shayga ilaahay siiyay waxa kaga aadan nabiga oo shukri ah iyo qoliyo nabiga sallallahu alayhi wasallam ka soo horjeeday oo gaala ahaa oo yaani cadaawad iyo colaad u hayay kuwa iyaga oo iyagana loo jawaabay rabbi wuxuu subhanahu wa ta'ala inna annagu a'tainaka wa nuqsinay nabi maxamed al-kawthara wabiga kawthar leeyada nuqsinay ee fasallituko li rabbika rabbiga darti utuko oo wanhar gawra oo dhuundhow li rabbika rabbiga darti u dhuundhow inna shani'aka kan ku caroonaya huwa isaga ayaa al-abtaru ku daba go'an ah ka ku caroonaya cadaawada ku haya isaga daba go'an macnaheedu waxa weeye waxaanu ku siinay nabi maxamed oo kawthar baan ku siinay kawtharku muxuu yahay kawtharka culimada tafsiirka laba tafsiir bay leeyihiin Abdullah ibn Abbas waxa ka sugan kawtharka wuxuu ku fasiray al-khayrul kathir waxaan ku siinay khayr fara badan oo aan la koobi karin sidaas ku fasiray Aisha iyo culimada la socotana waxay ku fasireen al-kawthar waa wabi khaas ah oo ilaahay nabi maxamed uu siiyay ummadiisuna ay ka cabi doonto tafsiirka Aisha ayaana xoog badan oo kawtharka nabiga fasiray sallallahu alayhi wasallam rasuulka fasiray wuxuu ku yimid حديث دورة أو كمذا حديث كأنس بن مالك صحيح مسلم كان قصة أرى وحو ليه أنس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد مرء النبي نلت شوقه نحن ندأ شوقه مساجد كدحديثة إذ أغفى إغفاءه يعني وحويان ثم رفع رأسه متبسما سيدي وحور دؤو كله أي النبي قال صلى الله عليه وسلم سوى نحفظه مركزه ملحة كرؤسه قاضي سوى أموصانية أو قصلي markaas waxaan ku niri ma adhakaka ya rasuul allah maxaa ka qosliye waadiga adoo qosliye soo kacay maxaa u qosashay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam laqad unzilat alayya anifan suratun hadda mardow waxa la igu soo dajiyay nabigu sallallahu alayhi wasallam suurad baa la igu soo dajiyay markaas wuxuu akhriyay bismillaahir rahmaanir rahiim inna a'tainaka al-kawthara fasalli li rabbika ila surada u dhamay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam atadruna mal kawthar kawtharku wuxuu yahay ma garanaysaa kawtharkan ilaahay uu leeyahay waan ku siinay maxamedow macnihiisa ma garanaysaan saxaabadii buu weydiiyey markaas waxaan niri buu Anas Allahu wa rasuluhu a'lam ilaahay rasuulkiisa yaqaan ma garanayna anagu markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam inna fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla alayhi khayrun kathir wa huwa hawdun taridu alayhi ummati yawm al-qiyamah wa nabiy sallallahu alayhi wasallam kawtharku waa wabigu rasuulku sallallahu alayhi wasallam wabigaasoo rabbigay ii yaboohay wabigaasoo korkiisa uu yahay khayr aad u fara badan waana darka ay ummadaydu ku aroori doonto weeye maalinta qiyaamada aaniyatuhu cadadu nujuumi fi samaa weelasha darkaas ama wabiga weelashiisu samada xidigahooda ayay la egyihiin oo la tiray yihiin fayukhtalaju al'abdu minhum sida loogu aroorahayo wabiga iyo darka looga cabayo ummadda nin kamid oo dhex socda qaar dhex socda ayaa la qabanaya markaas laga celinaya darkii markaas waxa leeyahay buu rabbi innahu min ummati
rabbiyow kanaad celisay ummaddaydii buu ka mid yahay markaasaa rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala innaka laa tadri ma axdatha bacdak waxba kama ogid wixii uu gadaashaada ka keenayo dib buu balaayo iyo riddo iyo kala yimid xumaan marka ummadaada kama tirsanaa la odhanaya markaasaa dhinac loo leexsanaya waa laga duwaya macnaha xawdki iyo darkii baa laga celinaya darkaasi markaa nebigu sal lla lay wasalam uu aayadda ku fasiray maadaama tafsiirkii nebiga aan hayno ma tafsiir kaleaan u baahanna leanna qur-aanka waxaa lagu fasira qur-aanku isagaas fasira nebigaa fasira salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo ilaahay baa ku sheegay inuu qur-aanka caddeeyo rasuulku sal lay slam hadduu isagu caddeeyo kawtharka uu yidhi waa webi ilaahay isiiyo ummadaydu ay ka cabi doonto tafsiir kale oo dhan warkiisa waa iska laabaynaa marka nabiga tafsiirkiisa salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayaan qabsanaynaa kawtharku marka waa webigaa waxaa soo arooray dhinacyihiisa labadiisa dhinac iyo labadiisa gebi waa teendhooyin luul ah caradiisuna waa miski biyihiisu caanaha waa ka cad yihiin malabkana waa ka macaan yihin waa yani waxa way wabi cajiib wey xawdka iyo kawtharku ma isku mid ba mise way kala duwan yihiin waa masale culimadu ka murmayaan ciddii ka cabtana markaasaa oon ugu dambaynaysa dib dambe uu oomi maayo kawtharkaas marka nebi maxamed baa la siiyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh ilaahay baa siiyey ummadiisaana loogu talagalay oo maalinta qiyaamada inay ka cabaan oo ilan qiyaamada waxaa la imaanaya iyadoo aada loo oomaya waxaa loogu talagalay marka inay ummadiisu ka cabto ku oombaxdo taasaa rabbi subxaana wa tacaala uu siiyey kawtharka maadaama lagu siiyey khayrkaas qiimaha badan iyo webiga haddii lagu siiyey maxaa laga rabaa marka fasalli lirabbika wanxar haddii ilaahay kuu nimceeyo soo nicmadii inaad ka shukrido ma ah shukriga muxuu noqonayaa marka inaad cibaadaysato wey fasalli lirabbika wanxar laba cibaado oo muhima la yidhi marka ku dadaal cibaadada koobaadi waa tukasho salaada cibaadaadka badaniga waa cibaadada u weyn rabbigaa keligii u tukaalay sida gaaladan ilaahay cid aan ahay u tukanayso kale ha yeelin adigu rabbigaa keligii u tuko wanxar xoolaha aad qalayseed gowracaysana rabbigaa keligii dartiisa u qal iyaduna waxa weeyaan waa gowrac hadiga xoolaha xajka iyo xoolaha maalan waxa way maartay yani markii cumrada xoolaha la kaxeeyey iyo adaaxida iyo xoolaha caadatan yani waxa way cibaadada loo gowracayo magac ilaahay ku gowrac ilaahayna ula qasad dan kaleetana ha u gowracin sanamna ha ku gowracin yani waxa weeyaan qabrina ha ku dul gowracin cid kalena ha ula qasdin wanxar lirabbika way macana lirabbikada horaa u qadarano rabbigaa dartii keliya u gowrac saas daraaddeed baa nabigu wuxu uhi sal lla alay wasalam lacnada ilaahay ha ku dhacdo ciddii alle cidaan ahayn wax u gowracda waa xadiiska nabigeena salawatu rabbi waslam lanna waxa weeyaan gowracu waa min acdam alcibaadaat cibaadaadka ilaahay loogu dhawaadee janno iyo rido lagu raadiyo cibaadaadka ugu waaweyn buu gowracu ka mid yahay cibaado ilaahay leeyahay haddii cid kale la siiyana waa shirki iyo gaalnimo wey saas daraaddeed qabrikii wax u qala ama weli u qala ama wadaag u qala ama jin u qala xaq ilaahay lahaabuu cid kala siiye wabitaali shirki buu ku dhacay laanna cibaadada naxriga iyo gowracu cibaado alle keligii u leeyahay magaciisaana lagu gowracaa isagaana loola qastaa qalbigana isagaa loogala qastaa afkana magaciisa lagaga dhawaaqa qalbigana wax kale lama gashado carabkana wax kale lagaga dhawaaqo markaad qalayso macnaha saas weeyaan wanxar baa layidhi waxay la mid tahay aayadaynu soo marnay fi suurati alancaam qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah salaadayda iyo gowracayga iyo noloshayda iyo geeridaydaba ilahay baa iskale cidina lama wadaagto cid meeshaa soo geli kartoo la wadaagto ma jirto gawracu marka taa wey wanxar markaasaa waxaa la yidhi ina shaani'aka huwa alabtar ina shaani'aka kan kuu caraysan waa kan ee kaa xun ee ku nacab ee cadowga ku ah midkaasaa abtar ah abtarka waxa weeyaan waa mid daba go-an wey waa mid daba go-an oo yani waxa weye khayr ka hadhay iyo magac ka hadhay aan lahayn isaga waxay kusoo degtay baa laleeyahay odayaashii reer quraysheed sida ninkii la dhihi jiray alcaas ibnu waa'il iyo abulahab iyo nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidaad ogsoon tihiinba yani wuxuu lahaa yani wiilashiisii iyagoo yaryar bay wada dhinteen gabdhaha u waaweynaaday nebiga sal lay slam yani waxa weeye khadiija oo kaleeto 2 wiil iyo 4 gabdhood bay u dhashay 2dii wiilba yaraan bay ku dhinteen ibraahim oo maariya dhashayna isaguna yaraan buu ku dhintay 4tii gabdhood baa waaweynaaday oo faatima iyo zaynab iyo umm kulthum iyo ruqayya
maadaama wiilashii ay ka dhinteen odayaashii markaa qoraysheed waxay yidhaahdeen marba hadduusan wiil lahayn waa daba go-an yahay oo warkiisu yani dhimashadiisuba ku dhammaan doonaa waxba ka hadhi maaye leanna waxa weye waxay rumaysnaa abtarka waxay u yaqaaneen ninka dhinta isagoon wax wiila ka tegin sababtu waxa weye abtirkiisina waa go-ayaa cidi ku abtirsan mayso yani waxa weye wax rag oo ka farcamay ma uu jiro abtar bay u yaqaaneen markaasa waxay yidhahdeen kolley waa daba go-an yahay isagaaba warkiisu iska dhammaan doonaa dhimashadiisu aan iska sugno rabbi subxaana wa tacala marka wuxuu ku yidhi ina shaani'aka kan kuu cadhaysanee odayaashaas iyo wixii la mida huwa alabtaru isagaa midka dabada go-an ah oo maxay ka daba go-an yihin xisaabtanku ma aha wiilal baa ii hadhay iyo yani waxa weeye dad baa iga dambeeya iyo farac baan leeyahay iyo warku ma aha ee abtar waxaa la yidhahdaa nin mar hadduu dhintaba adduunka wax magaca iyo wax qiimo u yaalla uusan jirin abulahab markuu dhintay adduunka inta ka war haysaa waxa uu loo hayaa ceeb iyo dhaleecayn iyo in wax laga sheego caas ibnu waa'ilna sidoo kaleeto odayaashii gaalnimada ku dhintay sidaasay wada noqdeen baynamaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh wax wiilal amuun uma korinoo uma weynaaninoo uma guursaninoo uma dhalin haddana maca dalika inta adduunyadu ay jirto magaciisaa la hayaa sooma waa kan soo marnay warafacnaa laka dikraka ilaahay baa magaciisa kor u qaaday oo intaasoo ummadoo atbaaca buu leeyahay oo ummadana oo dhan buu aabbaheed yahay nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu calayh muxuu marka waxa weeyaan ma isagaa abtara mise iyagaa abtar ah iyagaa abtaroo daba go-ay oo dhammaaday oo waxba ka hadhin magac xunna waa u yaallaa wax u ka hadhayna ma uu jira nebi maxamed se abtar maaha macna innaa annagaa acطaynaaka ku siinay nebi maxamedow alkawhara webiga kawthar la yidhahda annagaa ku siinay fasalli tuko lirabbika sidaas daraaddeed fasalli tuko lirabbika rabbigaa dartii u tuko wanxar gawrac wanxar dhuundhow naxriga inta badan geelaa loo isticmaala looda iyo adhiga iyo dabxi baa loo isticmaala lakin labadu waa gawraca leanna isku qaab looma gawraco geela si ka gedisan ayaa loo gawracayo yani waxa way dhuuntaa lagu dhuftaa marka wanxartu iyada waxaa loo isticmaalaa gawraca geela wanxar dhuundhow oo dhuunta ku dhufo xoolaha aad gawracaysa way lirabbika rabbigaa dartii u gawrac cid kaleeto meeshaas soo gelino ina shaani'aka midkan kuu cadhaysan ee kaa xun ee cadowga ku ah huwa isaga ayaa alabtaru ku daba go-an ah isagaa daba go-anoo waxba uusan khayr ka hadhin magac iyo sharaf uusan u oolin wax taageero oo raacsan uusan adduunka u joogin midka daba go-aneen waxba u oolin isaga wayaan barbari subxana wa tacala adiga ma ah saas way macana